function kan ayaan limitkiisa raadinaynaa t markay u socoto 0 waa aragtiin waxa weeyaan trigonometric function weeyaan oo waliba hadana composite because cos weeyaan functionka kore hadana function hoose ayaa ku sii jira inta waxaan ku haysanaa sec 2t marka waxa weeyaan sec 2t kaliya ma aha kisto sec 2t weeyaan marka saan raadin karnaa limitka function kan t markay u socoto 0 marka waxaan sameynaynaa limit kan soo qaadanaynaa sorry waxaan ka wada cos kan ayaan soo qaadanaynaa cos marka waad aragteen limitka t waxay u socotaa 0 marka waxaan sameynaynaa limitka waxaan ka agdhaweynaynaa variable ka t because t ayaa 0 u socota marka sec 2t ayaan u dhaweynaynaa to make things easier marka waxay noqonaysaa cos aan soo qaadanaynaa kor waxaan ku haysanaa pi oo labagi marka midkan waxaan ka dhigi karnaa saas waan u qori karnaa limitka inta waan keeni karnaa limitka t waxay u socotaa 0 marka waxaan sameynaynaa function keena kana soo qaadanaynaa marka function keena kana soo qaadanaynaa waa square root 19 minus 3 sec 2t ga marka saas waan sameyn karnaa haddana waliba waan sii dhaweyn karnaa haddaad rabteen haddii kalena sida tanba waan sameyn karnaa oo inta waxaan sameyn karnaa waxaan dhigi karnaa booski t ayaan 0 gelinaynaa marka waxay noqonaysaa 19 minus 3 sec 2 times 0 booski t haddii aad rabteena waxaan weeyaan waan sii dhaweyn karnaa marka waxay noqonaysaa cos طبعا waxaa weeyaan kor waa pi bisan ku haysanaa pi all over marka limitka gudahan gelinaynaa waliba qaybtan aan u dhaweynaynaa waxay noqonaysaa 19 minus 3 waa constant marka limitka intaan ku qoraynaa limitka t markay u socoto 0 limitka sec 2t marka طبعا waxaan dhaanba midkan ilaa iyo inta raised to power half weeyaan midkan korana waxaan ka dhigi karnaa parenthesiskas marka hadda limitkii waxaan u dhaweynay functionka qaba t functionkan qaba variableka ayaan u dhaweynaynaa markaas hadda waxaa weeyaan waan directly waan substitute garaynaynaa marka coskii ayaan soo qaadanaynaa parenthesiskeenina waa kaas kor waxaan ku haysanaa pi all over marka intana waxaan haysanaa 19 minus 3 marka sec 2t datan sec 2t waa maxay noqonaysaa limitkeedu t markay u socoto 0 marka booski t u baan gelinaynaa 0 marka 2 times 0 waa iska 0 sec 0 na waxa weeyaan waa 1 sec waxa weeyaan 1 all over cos waa la dhahaa magtayn sec 2t waxaa la mid ah 1 all over cos 2t marka t haddii noqoto 0 na marka 2 times 0 waa iska 0 1 all over cos 0 na waa iska 1 marka anyway inta waxaan ku haysanaa waa 1 marka parenthesis keenayaan soo xiranaynaa remember ha hilmaamin kan waxaan haynaa waa raised to power a half
marka cos ayaan soo qaadanaynaa coski waa kaas parenthesiskeeni markaan furno pi a kor noogu jirta marka 19 minus 3 waxa weeyaan 16 soo ma marka the square root-ki 16 weeyaan the square root of 16 the square root of 16 marka sa taqaaniiska 16 waxa weeyaan the square root of 16 waa iska 4 marka waxaan haysanaa marka cos pi all over 4 cos pi all over 4 waxa weeyaan maxay tahay waxa weeyaan sad 2 all over 2 sad 2 all over 2 marka limitka functionkeena kana daragteen waxa weeyaan limitka functionkeena kana daragteen limit of cos pi all over the square root of 19 minus 3 sec 2t waxa weeyaan sad 2 all over 2